maamulka degmada Reebad Khaatumo cuqaasha waxgaradka degmadaasi ayaa xaflad mahadcelin u dhigay dhalinyarada qurba joogta ee deegaankaasi ka soo jeeda waxaan uga mahadceliyeen sida ay u garab taagan yihiin degmada waxaanay si gaar ah u xuseen Cabdiraxmaan Xajiin oo ah qurba joog deegaankaasi ka hirgeliyay shirkadda leerka iyo hablaha walaalaha ah ee ilmo Axmed Xasan oo iyaguna halkaasi ka hirgeliyay madrasada Quraanka lagu barto iyo masaajid gorintii waxa halkaasi ka hadlay odayaasha dhaqanka ee degmada maanta waxaynu ka hadlaynaa wax qabadka ay qurba joogta ku leedahay magaalada sideedaba adduunyada waa la tartamayaa tartan baa lagu jiraa tartanka lagu jirana qof waliba wixii uu maxaan ku dhahay qabsaduun buu leeyahay gurigaaga adigu hadaad wanaajisato gurigaadu buu ku wanaagsanaanaya marka magaaladan degmadan Reebad Khaatumo dadka aadka loo mahadiyay waxa kamid ah Cabdiraxmaan Xajiin oo inoo keenay mishiinka ka baxa magaalada oo hore leer ma lahayn wuu iftiimiyay waana lagu farxay waxa leenahay dadka qurba joogta waxa kamid ah hablahan madrasadan iyo masaajidka isku qoofalanay ardayda badna ka qalin jabiyeen qaarna ay ma ka dhigtaan anigu aan macalinka ka hayan gacanta ku hayo waxaan aad u mahadnaqaynaa qurba joogta ku soo noqotay degmadoodii oo maanta xafladoodan ku qabanay ugu horeyn Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdilaahi wa Cabdiraxmaan Xajiin oo qof sidoo yaqaano ayaanu aad iyo aad halkan xafladiisa ku qabanaynaa aad ugu mahadnaqaynaa boqolkiiba 5 waxa intaan oo raaca hadaan nahay degmada Reebad Khaatumo waxa noo qabtay koow hablaha la yiraahdo ilmo Axmed Malow oo noo dhisay madrasada ardaydu ka qalin jabisay ee macallinku noo hayo iyo masaajidka oo wixii ugu qaalisanaa waxa soo raaca Cabdiraxmaan Xajiin oo ayadu magaaladu ah meel madow ayuu noo keenay Allah u siraada qabriga leerkaas noo keenay qaaliga ee degmadii hormarinteedii koob ka qaatay isaguna uu bidaan taariikhda waxaan u gelinay mid la biilaawana oo koob ka yahay qurba joogta reer Khaatumo ee degmada Reebad Khaatumo ayuu koob ka yahay isaga hablahaasi waxa intaan noo raaca oo qurba joogta aan ku haynaa inta la yiraahdo Saare Maxamed Saleebaan oo iyaduna degmada Reebad Khaatumo dadkii ku dhashay isugu degmada bilay oo bilibda u sameeyay oo maanta yaani hadii aan leer lahaan lahayn aan wax badan suurta gashay anoo ku hadlaya afka shaqaalaha caafimaadka ama xanaanada waxaan aad ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha leerka Cabdiraxmaan walaalaad mahadsan tahay runtii hadaan garanayno kelmad ka sareysa oo ka mulgeysan oo ka yaani wacan uun ka oranahay laakiin wad mahadsantahay waxaan u dhaafnaa ma garanayno waan ku ducaynaynaa waxaan ku leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka kugu daro Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdilaahi iyo ilmo Axmed Xasan ilmo Axmed Malow loo yaqaan labada qaybood waxbay ka qabteen haday qurba joogta yihiin maamulka ibaga hadda joogaana kulli uu firfirceen wax ka qabto wixii wax qabsanaya ama meesha wax ka qabanaya wax la qabto waxaan leenahay qurba joog iyo qolqol joogba wixii magaaladan u dhashay ee ka soo jeeday ee wax ka qaban kara hanti iyo fikrad iyo sarfay midalba waa looga baahan yahay inay wax la qabtaan oo wax ka qabtaan sanimka waxa nala jooga ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo ku magac dheer ina Xajiin waa la yaqaanay ninkii Xajiin loo oran jiray degmada Oodweyne ama gobolka Oodweyne nin caan ah oo taariikh leh ayuu ka ahaa insha Allah inankiisina kaalintii uu bixiyay waana u mahadnaqaynaa wixii uu noo qabtay ayaga iyo hablaha la yiraahdo ilmo Axmed Malow labaduba magaalada waxay ka qaateen qayb libaax dhinaca kale isagoo halkaasi waxa ka hadlay Cabdiraxmaan Xajiin oo ganacsade qurba jooga oo deegaankaasi ka hirgeliyay shirkadda leerka ganacsigana waxa loo sameeystaa oo waxa weeyaan dalkii aad ka timiyay degmooyinkii iyo deegaanka ku noolay in wax dib loogu soo celiyo inta iyo in ka badan oo istaahishaan waana ku talagalay inaan intaas oo kula wax qabadkayga ku koobin wax inta ka badan aan diyaar u ahay in degmada Reebad Khaatumo iyo deegaanka kale ee ka soo jeeda gobolka Daadmareed aan u qabto aad iyo aad markoowaad mar labaad mar saddexaad waan idin mahadnaqayaa sida sharafta leh ay qiimeyseen ay soo dhaweyseen hawlo badan baan doonayaa in gobolka ka qabto insha Allah taala idinka ilaahay
hawlahaana kolley bilowba uu ahaa ama bilowba uu ahaa jiinka iminka aan keenay laakiinse insha allah mashaariic kaloo badan baan doonaya inaan qabto waanan dadaalaynaa insha allah tacaala dadka qurba joogta ah ee u dhashay degmada Reedab Khaatumo iyo gobolka Daadmareer guud ahaanba waxaan ka codsanayaa sida aan u nimi magaalooyinkii iyo degmooyinkii aan dib wax ugu soo celinay inay idinkuna ku soo dhiirataan oo idaan ka baqanin oo aad timaadaan ayaan idinku boorinaya insha allah tacaala idinka ilaahay qolooyin badan oo wada hadlayna way jiraan insha allah oo kulli soo socda maamulka cusub ee degmada Reedab Khaatumo maamul dhalinyaro oo firfircoon wax badan qabtay wax badan qaban doona insha allah tacaala idinka ilaahay iyagana waxaan ka rajaynayaa insha allah tacaala in dadka qurba joogta soo dhaweeyaan dadka degmada maalgashanaya soo dhaweeyaan insha allah sarfeyga waa la bixinayaa wixii dhul looga baahday iyagu itaalkooda insha allah tacaala ku dadaalayaan dad magaalada degan waa dadka ganacsatada magaalada degan waa dad aad u wanaagsan oo sharaf badan runtii waa dad aad u soo dhaweyn wanaagsan runtii aniga magaalooyinka kale oo dhan Reedab Khaatumo way iga duwan tahay haddana sidaada caawi jaaysado aad bixisidoo kale magaalada Reedab Khaatumo la maroo ka dhigi lahaa waayo waa dad soo dhaweyn wanaagsan dad qalbi wanaagsan dadka martida soo dhaweeya dadka wuxuu qabanaya soo dhaweeya insha allah tacaala anaguna shirkadahan wixii la nooga baahdo ama hooyooyinka iyo dhallaanka sida xanaanooyinka oo kale xoolaha dadka wixii la nooga baahdo inuu amarkiisa habeen iyo maalinba heegan u galaan u shaqeyno ayaa la nagu ku dadaalnaa insha allah tacaala aniga tiimkaygaba waan idin soo dhaweynayaa sidaan noo soo dhaweysana insha allah tacaala inka badan insha allah tacaala nagu inaan idin soo dhaweyno khayr badanna waan idin rajeynayaa isaguna waxaa halkaasi kelmad mahadcelina ka yidhi xogayaha degmada Reedab Khaatumo Cali Muuse Yuusuf Cabdiraxmaan waxa weeyaan deegaan kale kaliya maaha waxa weeyaan shan magaalo ayuu keeno whisky uu keeno waxa weeyaan isagu markuu baayaa ku galay uu isagu isku xilqaamay inuu keeno ijiinada leerka waxa kaloo u raaca inuu keeno meel walba banjarkii gaadiidka oo ku lamaan waxa kaloo la socda oo loo dheer laxaamadii oo albaabka ka jaba ama Hargeysa ama Oodweyne loo qaadayo mastaafada loo socdo awogtiin baahiyahaas wax badan bay laga dabooleen waxa weeyaan qofka wax yar soo kordhiya wax weyn baa naga loo soo kordhiyay waxa aanu dileelahay dib ugu soo noqda deegaankii horumarkiisii annagu haddaanu nahay maamulka waxaanu diyaar u nahay in baahiyaha jira inta itaalkayaga aanaan waxba ka agran habeenii maalin soo jeedno u socono adduunkayaga ku bixino naf iyo maalba u hurno waxa weeyaan guryahayaga aanaan u hooyanin marka waxa weeyaan horumarka deegaanka maamulka gacmaha haysta horumar wada doonaya hal laga qayb qaato wixii dhammaan ugu dambeyntiina maayarka degmada Reedab Khaatumo Maxamed Asad Dugad ayaa isugu bogaadiyay una mahad celiyay dhalinyarada qurba joogta dadka ma lihin wax dangooda dhisa ninkii guri uu leeyahay degmada ka soo dhista degmada iyo dadkaba waa u sharaf iyo qof ka dhistayba ninkii ganacsi ka soo furta waan soo dhaweynayna oo wadan ma lihin wax dangooda hal qabto Cabdiraxmaan Ijin deeshiinadiisuna waa u shaqeeyaan dalkiisina wax ku soo ceshay waxaan kale soo dhaweynaynaa ganacsatada kale meeshan waa xad dawlad waxay xad la leedahay aan lahayn bad iyo dekada wax ka soo degaan halkan oo kale ganacsiyo badan ayaa ka soconaya oo dhulkeenan hawdka oo dhan Soomaali degantoo dhan waxaanu laakiin ku soo saari doonaa barnaamijyo kuwa ka dambeeya qorshayaashan kuwa ka leenahay laakiin hadda waxaan doonaynaa inaan magaalada sarfeeyga ka saarno oo ilaa dhulka hawdka u banayno si magaaladu u korodho dadkaan u saaraynaa doonaynaa dhulka ay dhistaan deegaan waa dadkii degmada u dhashay ama magaalooyinka Soomaaliland ka joogaan ama qurba joog ha noqdaan ama dhulka dadka miyiga ha noqdaan dadkii inay deegaan oo ku ganacsadaan oo magaaladii koriyaan oo bilceedii aan ka shaqeyno oo horumarkeeda aan ka shaqeyno annaga laftaga maamul ahaan magaalooyinka waaweyn ee Hargeysa iyo dhulkaas aan ka shaqeyn jirno dawladdaas aan madax ka hayn waxaan dib ugu soo noqonnay
inaan degmadayadii aan xamse jaamaciyare telefishinka caalamiga badda cas 24 TV